وقاك ضوضي لك سود هذا الفيديو أنا مرت من الشركة الدوان كبحد هذا الفيديو استمر كانوا كهذا الله رميها بالشدة السياسة رمى دقائق الدينين يتن بالشدة جودها ما كهذا الله برامج كنا ضوضي يال وحنا كان يدونا حالة جود سياسة الجيش كأفريقيا وحبرامج كمرتيجو أقوياهن شيخ جير ميدل وعلى بكفى الله سياسة الجيش كأفريقيا استمر كان سياسة وديدا برجع الدحى كمان مقنع وقاك ان برنامج كلا حدود تاجدونا arrimaha siyaasadeed ee geeska Afrika soo cusboonaaday arrimaha Djibouti dabcan iyo doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliya ka dhacay ay isku taagdoona marka hore waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Sheekh Gilime soo dhawo waan dhawahay waqaak marka sharaf inoo tahay inaynu ku qaabilno studio LVD oo dabcan aad ka mid noqoto dadka naga ogolaaday in aan waraysi joogta arrimaha geeska Afrika taagan waxa ku soo kordhay dalka Djibouti ايش lagu wadahay dabcan aqoonyahankii labaantii culimada ay ka soo cararayaan aan mar walba aynu wixii ka soo cusbanaada bulshooyinka geeska Afrika ku nool ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Djibouti la wadaagno wagaag aad u maasanta Sheekh Giri Meedel mar kale hadii aanu nimaano barnaamijkan intuu soo gudagalno wax laga joogaa dhowr bilood ayaa lagu dhawaaqay urur siyaasadeed cusub soo markaana dalad ay ku bahoobeen axsaabta ugu tunka weyn Djibouti taas oo lagu magacdaray BSN waa dalad cusub isla markaana dabcan la rabo in dib looga soo jafo boorka hanaankii siyaasadeed iyo daladihii xuduudda sameeyey isla markaana ay saddex culamo waqtigii 13 ay barakeeyeen BSN oo lagu dhawaaqay saddex xubnood oo siyaasadeed oo dabcan idhaaho saddex xisbi oo siyaasadeed ayaa ah maxaa waqtiga kusoo beegay BSN dhaqdhaqaaqa hadda bilowday xitaa qudheeda oo maalmihii u dambeysay arkaynay inay booqanayeen gudoomiyaasha saddex xisbi ay booqanayeen meelaha kala duwan ee xukuumadda dalka Djibouti ay u liidato dhanka gaar ahaan nadaafadda iyo fayadhowrka bismillaahi raxmaani raxiim waxay ila tahay BSN maxaa xilliga kusoo beegay dee waxa weeyaan horta waa xisbiye jiray oo ummadda ka dhex shaqaynaya muddo dheer waa la garanayaa xisbiyadaasi markaa waa kuwii 2013 iyagoo inta ka ballaaran hawl isla galay muddada dhexdeeda xoogaa hakisaa yimiday oo kolley waa lala socdaa markaa waxay ila tahay si wax cusub loo sameeyo oo wixii hore ee dhacay wixii ku jiray maaragtay waayo aragnimo iyo cashiro wixii laga dhaxlay waxay u baahnayd muddo oo dee in la isku tago maaha macnuhu ya waxa weeyaan cidda isku tagaysa iyo maxay isugu tagtay barnaamij ummad lagu badbaadinayo oo wixii horay godad loogu dhacay oo dhan la iska ilaalinayo kulle inuu wada tashi gundheer u baahan yahay waa la dareemi karayaa marka waxay ila tahay markii hawshoodu ay bislaatay ee aragtidu ay u caddaatay ee meesha in laga digtoonaado loo baahan yahay la isla meel dhigay meesha loo socdana la isla caddeeyey buu barnaamijkani dee xilligaa baa lagu dhawaaqay laakiin duruufo gaarahoo waqti ku saabsan oo lala eeganaya miyay jirtaa mas-uuliyiinta ma garanayo inay iyagu arrintaas sheegeen laakiin ani ima muuqato waxay arrintaasi kulley ka dhalatay uun wixii la karinayey iyo fikirkii cusbaaye la isla meel dhigaya xilligii uu bislaaday xilligaa unbuu ku dhawaaqitaan ku yimid saasay ila tahay waayo dhibaatadan dalka Djibouti ka jirtid dee lama odhan karaayo shalay iyo daraad bay wax dhaceen oo wax soo raagay oo jiray oo in wax laga qabto markastana u baahnaa marka wayna ku jireen iyagoo oo istaageersanaya inay hadda saa u dhaqaaqaanna waxay ka dhigan tahay waa xilligii ay barnaamijkooga u bislaaday saasay ila muuqata wagaag aad baan wasan tahay Sheekh Meedel haddiinu nimanno xubnaha BSN hadda waxay ku bilaabeen saddex xisbi oo ugu waaweyn laga yaabaa in qorshaha ugu jirto in ay isu keenaan dhammaan xisaabta kale walaalaha kale ka maqan isla markaana iyagu ay noqdaan aabay dadka isu keenaya xisaabta inta kale ka maqan
iyo kuwa hadda iyagu dabcan sheegay inay hadda urur siyaasadeed cusub yihiin dhalinta la magac baxday xarbiste horta dee siyaasadda kolba ciddii isla jaan qaadi karta unbaa wax isla bilowda ee in wixii meesha jiroo dhan lasoo wada ururiya siyaasadda maaha adduunka dhanba waad aragtaayoo waddannadaa nagu wareegsan cid hal meel ku ururtay ma jiro ee meelo anigu waxaan u arkaa dadku inta badan waxay ku celceliyaan maxaa hebel looga tegey maxaa hebel looga tegey marka dee ka tagitaanku xataa cid kastoo loo yeedhay iyada qudheedu inay aqbasho kuma qasbano way dhici kartaa inay dadka lala xidhiidheen qofka ay la xidhiidheen hadduu xataa ama ururka ay la xidhiidheen hadduu aragtidiisa ka dhex arki waayo inuu isaguna ciddii kale uu wax ka dhex arkayo uu wax la qabsado siyaasadday ka mid tahay marka dadkeennu inay ceeb ka dhigaan maaha tirada maxaa looga dhigay 3 maxaa intii kale looga tegey way dhici karaysaa kuwo kale inay berri ku soo biiraan oo waxyaabo badan oo dee maanta aynan aan weli isla bislayn ay maalin kaloo dhowba dhigaato way dhici karaysaa inay kuwo kale saa iskaga joogaan oo ay isku tag kala ama dallad kala sameeyaan annaga dalka cid kasta oo fikir cusub keento oo ummadda ururisay dalka damba ugu jirto waxtar un bayna keeni doontaa hadday waxtar leedahay ciddaan waxtar lahayna ummaddaaba arki doonto ciddee waxtar leh maskax cusub iyo daacadnimo iyo damqasho dalkan loo damqanaya ay ka muuqato hadday wax samayso bulshadaaba arki doonto horta cid teeraanku uu xidhan yahay oo ciddaa unbaa joogayso ciddani ma jirta la odhanaya ma jiro ummadda reer jabuuti buu teeraanku u furan yahay ciddii ciddan ku soo biiraysa way fiican yihiin ciddii kale wax kaloo wanaagsan oo dalka wax u taraysa samaynaysa way fiican yihiin marka wax ceebaya kuma jabna inay tiradu 3 noqoto iyo inay ka badnaato inay ka yaraato iyo inay dhowr urur oo kala duwan ay jiraan waa wax siyaasadda u danaynaya wax dhibaato lama wayahay wagaag aad baa usan tahay shaakirime ma kale haddii noo imanno 2013 markii ugu waaweynaaye daladii waktigaasi xukunka talada haya ee haramuus kirkishay waxaa hormuud ahaa siyaasiyiinta iyo sidoo kale wax aad u barakeeyey 3 culimo ee adigoo qayb ka tahay sheekh giina meydel sheekh barkhad good iyo sheekh mufakir abdiraxmaan salaam bashiir muddada iminkaad sheegtay ay xisaabta mucaaradku ay dib isugu laamayeen xisaabtamayeen dabcan ay iyagu wada fikir iyo xog iswarays iyo dib isku laamasho ay u laameen aad ugu soo fikreen ay waqtiga ku laamaan culimada intaa baraarujinta waad wadeen haddii noqoto xag diini haddii noqoto xag bulsho iyo xag siyaasadeed waxaa timiday wax lagu dhawaaqay daladii lagu dhawaaqay hadda iminka dhowr 6 bil hadday ka yarayn hadday ka badnayn mawjida dabcan weyd ururka lagu dhawaaqay waxaa weli maqan baa bulshadu aaminsan tahay dowrkii culimmada sheekh giire medelan baa si buuxda ugu dhawaaqay inuu wada shaqayn siyaasadeed baa kasoo dhex muuqday maxaa ku dhaca labada ka saaxiibo maadaama culimmada hoos iska yihiin miyay ka hadheen siyaasaddii oo markii hore ay qayb ka ahaayeen sheekh good waarnaa buugaag iyo alaab buu bilaabay halkaas iyo wuxuu u leexday suugaanta sheekh mufakir waxaan jeedaa abdiraxmaan salaam bashiir isaguma falaqaynta iyo arrimaha geeska iyo in wax laga weydiiyo arrimaha masiirka ummadeed iyo waxaas u leexday bal waa sidee xaaladda culimmadii waqtigaas oo bsm ka xad moodinay xoogaa xakad ay geliyeen iyaga qudhoodii halgankii ummadda ay la soo wadeen horta waxaaba dee xoogaa dhibaato ah in la yidhaahdo 3 culumaha isbeddelka ku jirto ma aaminsani inay 3 noqon lahayeen oo culummada dalku way badan tahay aqoon-yahanku uu badan yahay laakiin dee maxay in tiro yare u soo baxday intii kale u soo bixi laadahay eeg su-aashu waa sida ma xaaladda ummaddu ay ku sugan tahay ay dadkaasi raalli ka yihiin ma wax ay dhaafi kari la'yihiin oo naftooda dhibaato ahoo waa la dareemi karaya hadda xaaladda dalku siduu yahay oo xorriyad uu qofku hadda dad badan oon ognahay oo nala soo xidhiidho wallaahi halka aad joogtiin baan joognaa laakiin xoogaa way iska jiraan laakiin horta dadku ma yaro oo inaan la moodin 3 yaa dadku ma yaro culummo xataa culummo badan oo xanuunsanayso
laakiin hadli karayn baa jiro sababaha dee way badan yihiin sababo waa la dareemi karayaa dalkaasi u samaysmay nidaam baa ka samaysmay horta saas waa fikrad guud oo dadku dad saddexa ma aha saddexdayadaa hadda aad magac dhowday markii 2013 ma ahayn oo qura hata inaan saddex ahayn dee culummo badan oo hadda aad in badan ka taqaanaan baa iska joogtay aqoonyahan culummaduna dee lambar gaaray sitaan ma lehe dadkay ka mid yihiinoo dad badan baa waxay xataa na yidhaahdeen maxay nigoo culumaa siyaasaddan soo geliyey su-aashaasi siday tahayba sidaabayba u foolxun tahayba waa su-aal foolxunoo in qofka aqoonyahanka wax garanayo diintii garanayo dhaqankii wanaagsanaa garanayo loo ogolaado inuu xaaladdaa iska dhex fadhiyo oo dadka uu sida loo weysaysta keliya hata u sheego oo haddii waxaa wax dhaafsan uu sheego war cadaalad xumaa jirta la dhahdo oo meel baad gashay la dhahdo taabaaba khalada moogtahay taabaaba khalada marka annaga waxaan u malaynayaa hadde xidhiddii iyo de ismaaciil cumarba waa dareemaysaayoo meesha ku culus unbuu ku boodo waan dareemayaa culaysku uu jiray oo saddexdeedaa buu ka dareemay ila tahay oo markii aan xidhnayn xataa isagoo madaxweyneha iyuu sheegay markaan soo baxnayna uu sheego qaarna meel baan ku hayaa qaarna way jirtay oo waan dareemayaa culayska aan ku hayna inuu si gaara u jiray waan dareemayaa laakiin culummo badanoo way jiraan dareen leh oo inay hadlaan u diyaara oo miligeyga la sugaya weliba saan hadda qiyaasayo inkastoo dee hadal kaste wakti buu ku habboon yahay miligii lagaga baahnaa haddaad hadli weydid waaga dambeed hadashay miisaankii hadalkaasi uu lahaa kulley waxbaa dhimi doona ila tahay anu waxaan odhan lahaa horta waa iga dardaarane ciddii ummaddan u hadlaysa ee dareemaysa inay wax dhimo yihiin maanta looga joogaayo maantay ku habboon tahay wuxuu waa taariikh in 3 qof baa hadasha iyo 2 hadasha iyo 6 baa hadasha la idhaahdo oo wax macno weyn ma samaynayso waxa weeye taariikh baa qormayso wakti baa socdo ciddii berri odhan doonto waxani waan arkayay inuu khaldan yahay qaar badan oo ilaa waayadaa joogay oo xataa annaga waayadii dee dhibaatadu ay dhacday ilaa hadda dhibaatadii markay muddo dheer aamusnaayeen hadda hadlayo qaarkood xidhan yihiin ayaa jiro oo waa saluugitaan yani saluugitaan baa jiro maxay uga hadli laayihiin BSN horta urur aniga shakhsiyan haddaan iska hadlo urur kasta oo waxtar leh oo teeraanka ku soo biiro oo ummadda u adeegayo oo fikri toosan xambaarsan waan taageeraynaa aniga shakhsiyan waan taageeraya walaalahayga kalena inay taageerayaan waa hubaa waa kow hadda waxaa dhawaaqay BSN soomaa xoog baan u taageeraynaa marka xoog baan u taageeraynaa waan maqlay anigu ma garanaya inaad aragtay sheekh cabdiraxmaan meel la joogay inuu taageeradiisa xoog ugu dhawaaqay waan maqlay waad fiirsan karaysiin kolley hadalkaas baraha bulshada uu ku jiraa waana joogay aniguna shakhsiyan haddaad hadda i weydiistay dee waaban ku jiraayoo xisbiyadan baaban ka mid ahay anigu waaban ku jiraa taageeradayduna waa muuqatay imikana waa muuqataa waa kow urur kasta oo yimaado waxtar lahoo taageerana weydiistana waan taageeraynaa laakiin dee waa in khadku uu quman yahay dee eeg taliskiina waan diidanahay dhanna gacan baan kala haysanaa wax dee macnale oo ay noo samaynaysa ma jiro waa in waxa ummaddu ay doonaysa si cad loogu dhawaaqo waa kaa maxaad annaga noo taageeri weydeen iyo waxa hadday noqoto aragtida waa lagu kala duwanaan karaa sheekh cabdiraxmaan bashiir waan ogahay inuu wax badan oo ummadda wax u tarayo oo dee falaqaynta geeska iyo aqoonyahanka weyn oo ummaddeenna dee maanta ay ka faa'iidaysan lahayd oo laakiin dee hadda laga celinaya inuu dalka kaalintiisa ka galo uuse kaga jiraa
BSN ma garanayo wuxuu ka sheegay haddaad inagu waraysateen ma garanayo laakiin de isagana waad waraysan kartiin oo waad waraysan kartiin laakiin anu intaan hadda ka ogahay waa intaas waxaanse ogahay aniga iyo kuwa kale ee maaragtay aqoonyahanka iyo culummaduba cid kasta oo wanaagsan oo dadka qofku hadduu dadka qancini waayo oo fikirka isagu uu wati uu iibsami waayo waa naqsi xaggiisa ka yimiday laakiin cid kasta oo nagu qanciso waxa ay waddo waan taageeraynaa waka dabcan diyaan qaybta ka imanno qaybihii BSNta waxaan rajaynayaa in dabcan iyaguna ay mowqif ay muujiyaan طبعا وسؤالها برشلونة سويدين السوق وبينتنا وحوي واسكو حركة أما بمنتظر ما كابد اسكو حدا برشلونة ولما السياسيين تا يسوق كلا كان حستدوي كان سؤالها سواء كلمة أنا وحوي ودرين كبرشلونة أنا وأنا عشان خدنا إنه سؤالها كلا جبن مدام علماء ذلكاتين أربعة دستور كجيبوتي جيبوتي ودي هذا عكران لبا أدير اسكو عبد الصمرتي دستور كوحوي ونن يتجيب كجروي sida rabo loo bedeshaa aftidid weyn lama yaqaano xildhibaan la iska soo xushay oo golaha wakiilada Djibouti loo yaqaan ba ayaa kolba gacantaag wax iskaga bedesha marka hore waa la bedelay da'du waa la bedelay hadda ugu dambeysayna geel ayaa dhawaan soo booqday golaha wakiilada Djibouti ee baarlamaanka golahaasi wakiilada waxa hadda ka gudoomiye garabka dhow iyo saaxiibka dhow ee hore u ahaa ra'iisul wasaaraha Djibouti oo ahaa Dileeta Maxamed Dileeta قال وقتي وكسو قاري دا واي حيسا ان شلay oo ugu dambeysay waxaynu arkaynay xaalka guud ee geeska Afrika doorashooyin ka dhacay oo musabbixeed ay hayeen madaxweyne Geela ay hayeen saaxiib dhow ayaa dabcan laga guuleystay ififaalaha ma ku muuqatay shaqadiimeed ififaalaha ah in dastuurka Djibouti la rabo in marka la bedelo ani waxay ila tahay horta wax ka hor joogo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu dastuurka bedelo oo xagga qaanuun ahaan maanta ma jiro waayo waxaan ula jeedaa ma jiro baarlamaanka ay ku xidhan tahay baarlamaankuna waa shaqaale ummadda reer Djibouti waxay aaminsan tahay aniguna aan ka mid ahay ummadoo dhanna ay aaminsan tahay Ismaaciil Cumar Geelle xataa uma baahna inuu soo booqdo gudoomiye baarlamaaniya waxa inuu soo booqdo uma baahno hadduu xataa qoraal yar u diro ama uu mid magaca u sheego u yiraahdo berri baarlamaanka geeya inay marinayaan waan hubaayo cid wax diidi karta uu madaxweynuhu maanta doonayo horta meesha ma joogto taa horta maadaama ay sida xaaladdu tahay laba arrimood bay ku xidhan tahay in dastuurka aanan la bedelin oo laga ilaaliyo bedelid midi waxa weeyaan madaxweynaha oo intuu hareerihiisa waxa ka dhacaya eego oo dadkii dastuurka bedeli jiray xaaladay ku dambeeyeen intuu eego hal mar bay ku martood bedeshay maanta dhulku sidii maahine daana way ku haysaa in la xukumana waa soo xukumtay ummaduna way ku dul qaadatay Soomaalidu waxay tiraahdaa walaalkayo macaan lama wada muudsaday tiraahdaa intuu sidaa u fikiro oo ilaahay uu aqli toosan iyo baaqa ummadda intuu iska dhageysto uun dee shalay madaxweynihii yani muddo soo wada shaqeeyeen oo siilaan yaa dhintay ummaddu siday ugu soo baxday loogu tukaday oo loogu duceeyey waa kii la arkayay war aday ummaddu maaragtay ay muxuu ahaayay xoogaa raje hadduu ka qabo inuu sidaa u fikiro isagu iska daayo waa badbaado labada waxaa kaloo badbaado ah ummadda reer Djibouti ee cisho kasta lagu tumanayo oo intay kacdo diidma muujiso oo muxuu ahaayay dalka dhibaatada ku soo socoto intay dareemaan muddadii uu madaxweyne Ismaaciil Cumar xakumayna way arkayaan siday wax ahaayeen in xilkasnimo dadka inay dad xilkasa yihiin oo wax garadaho karaamo leh intay yihiin intay dareemaan iyagu kaco oo kartidooda muujiyana dastuurka way joojin karaysaa laakiin wax intaa ka sokeeyo oo kale oo u diidayo ma jira yani baarlamaan u diidayo ma jiro
waa wax miiska iska yaalla hadduu sidaa u fikiro dadku baarlamaanku marinayaa iyo waxaa wax laysku mashquuliya maaha waxaas baarlamaaga uma baahno madaxweynuhu uma baahno warqaduu cisho u qoro oo farta loo taagaa iyo waxaana wax weyn maaha isagay ku xidhan tahay marka isagay ku xidhan tahay inuu garaadka da ahaanna muddo lagu waayo aragnimo qaato oo lagu garaad qaato oo siyaasad ahaanna uu ku soo jiray dastuurka inuunan bedelin inay dantiisa tahay dad badan oo ku riixayo oo mudana madaxweyne oo ku hoos dhuumanayo oo dana ku qabi way jiraan maxaa ku riixayo waxaan dadka baan u sheegayaa ilaahay u naxariistee waxaan weydiiyey dee waa uu iga hooseeyaa maanta waana taariikh waktigii ismaaciil geedde xareed madaxweynaha la kulmay annagii u ESNTA baan habeen keligay u tegey markaa baan weydiiyoon kurin maxaan ku yidhi ismaaciilow intaayoo sanaad bannaanka joogtood mucaarad ahayd aniga keligay baa la joogay ilaahay baana iyaana saddexaynay maxaa kuu kalifaan idhi ismaaciil cumar maanta inaad u tegtid ood arrintaa kala hadashid ood wada hadal inuu yimaado kala sheekaysatay wuxuu igu yidhi waxaan ka cabsooday buu yidhi yani wuxuu yidhi da'na waan joogaaye waxaan ka baqay buu yidhi ninkaasi xaaladda dalku uu ku sugan yahay inay nafi u geynayso war haddaad dacdid maanta biloo badbaadi weyday oo naftaadu halis gashay cabsi noocaahi biloo ku jirtay baan idhoo waxaan isiri buu yidhi war ha loo tago oo war ummadaadu maanta adiga dhibaato kulama maagane e way ku garab joogtaaye dalka badbaadi ha la idhaahdaan ugu tegey buu igu yidhi aniga dan gaarahoon maanta kale ahay cumri baan joogaayo ma jiro waa hadalkii ismaaciil geedde xareed ilaahay ha u naxariisto dee ummaddeennu waxay tidhahdaa wixii tegay daad ha qaado madaxweynuhu haddii waxaas dee nin aniga iga da'weyn oo siyaasad ahaanna iga yaqaana hadalkii uu yidhi weeye hadalkaas aniga yaa ismaaciil cumarna ay aad isku garanayaan wuxuu dareemayey in madaxweynaha ay jirta cabsi uu ku dhuumanayo madaxtinimada iyo kursiga iyo wax inuu wax brotejaynayuu dareemayay oo cabsi ay waxa u geynayso taa darteed buu wala hadal yuu ula furay waagii ESNTA madaxweynuhu ay wada hadleen isagaana markaa u ahaa khadkii arrintaa furay dee hadday taasi jirto waa sidii uu ninkaa maaragtay ay odayga ahee cumri ahaan iyo siyaasad ahaanba noo sheegay wax naga ogaaya hadday jirto tii baa maanta joogto oo ummaddu cid ay eryanaysi ma jirto inay ummaddu wixii hore lala heshiiyo oo iyada oon laga mid noqonayn la isku tanaasulo dhaqan baan u leenahay madaxweynaha hadday taasi eryanaysa dee ma garanayo laakiin caqli kale oo maanta ku riixaayo inuu dastuurka bedelo kartidiisa u arkayaa hareerihiisa waxa ka dhacaya u arkayaa ummadda reer jabuuti inay maaragtay ay hadda way gabanaysaayoo maaragtay ay ummaddu gurigii kuma lamina way soo baxday oo weli way taagan tahay carabtu waxay tidhaahdaa waxa la idhahdaa istiraaxatulmuxaarib waxay ka dhigan tahay markuu qofku dagaalamaayo uu neef goosasho u yar joogsadaa ama qofku markuu muddo dheer ordo neef goosasho iyuu u joogsadaa ummaddu xoogaa horta way soo baxday dib looguma laamayo guryihii hadde laakiin way taagan tahay oo kolba xaaladdu siday tahay baa dhegta loo dhigayaa oo halkaa bay taagan tahay da'diisa wuu arkayaa hareerihiisa waxa ka dhacaya wuu arkayaa saxansaxooyinka iyo dabaylaha nagu socday hareeraha iyaga ka dhacayo oo dhan wuu arkayaa ummaddu waxaan inay la falgalaysa wuu arkayaa isagoo intaa arkaya caqli inuu dastuurka bedelo u sheegayo inuu ku adhan yahay uma malaynayo haddiise kaa cabsidu ay jirto hadalkii ismaaciil geedde xareed baan leenahay oo hadday cabsi taa kugu riixayso ha cabsoonin hadday taasi jirto cid gaar kuu eryanaysi ummadda reer jabuuti kuma jirto haddii ummaddu ay maanta wax ku heshiisana cid eryanaysi cid ma ogolo cid reer lagu eryanayana cid ma ogolaanayso cid madaxtinimo lagu eryanayana cid ma ogolaanayso taariikhda waa la akhriyaa
waxa hadda joogana waa laga tashadaa waka marka aniga haddaad su-aashaa i weydiisay muu bedeli karaa hadday maskaxdiisa ka soo go'do ummadduna ay maaragtay ay kaalinteedii geli weydo cid kale ka hor joogsanaysa ma jirto waka anigu ma doonayo dadka ay u qasbaya runtii haddaan sheego oo dadweynaha ayaantii dhow aan oran weli hadlinba dadweynuhu weliba dhalintu ay tiri joog dhaqaaqina igu tiri baan iyaan u soo dhigtay inaan mar ugu dambeyn haddii alla yidhaahdo aan samayno inaan sii joogo oo shaqada wixii yani qabiyo naga aan sii dhamayn mansab jacayl iyo madaxweynenimo wax dan oo gaar ah aan ka doonayay ma jiro waan gaboobay shaqaduna dhalinta ay ku wanaagsan tahay wixii barnaamij noo socda dee iminka hawshu way badan tahay barnaamijyo aad u fara badan baa noo qabsoomay haddana kuwa aan ku dhex jirnayna kaba sii weyn shaqa la'aantu waxa weeye rashiidow codkaagu iga go'ayaa raalli haw codka hagaajiyo eeg anigu dee videogana hadda soo dhigtay intaanu madaxweynuha ka run sheega haa da'na uu sheegay dhallinyarta igu qasbayso markiina hadday qasab ahayd wayba dhammaatay oo dee moogtahay inuu doonitaanku run yahayna waxaba lagu caddaynayaa uun guddi dhexdhexaad oo kani somaliland maanta doorashada ka qabtay ku lamid un ha la sameeyo hadday dadku madaxweynaha doortaanba bal haba la arko oo dee taasi bal qasabka la sheegayo iyo bal say wax yihiin haba la arkee waana markii u dambeeyeyna markaa uuba yidhi ahayd oo dee ma garanayo yacni murtidu waxay tahay isagaaba sheega intanuun hadda ha socota intaa uun ha socoto intaa uu sheegay uun ha socoto dad dhallinyaraa jira buu yidhi waa runtiisa ummadda hadda waxaa jiro qaar oo muxuu ahaayey madaxweyne ismaaciil cumar geelle hadduu dalka ka tago eegde dalkaaba la caayayaayo walow dee cid kaloo isaga ag joogtaba ha noqotee waddanka dhani qof qura maahina ma jiro hooyooyinkii reer jabuuti taariikhda lahaabaa la caayayaayo nin kale may dhalin macnaha waa noocay oo dalka kuma fiicno taasi ma garan dad yar baana waxa ku sheekeeyo marka murtidiidda waxay noqonaysaa un bal sidan la sheegayuu madaxweynuhu hadda sheegay uun ha laga run sheego waa intaa way wagaag aad baan soo sheekh gari medel dabcan taas ka gudbaynaa kulli hadalka madaxweyne Ismaaciil Geelna wuxuu ahaa qayb aynu dib u xasuusinay hadaladii uu ka sheegay laanta Soomaaliya BBC haddaynu gudubno doorashooyin baa ka dhacay Somaliland dabcan waxaa ku guuleystay xisbiga wadani Irro oo dabcan dad fara badan ay u hambaliyeen dadka aad ugu dhow dowladda ama la socday waxa kamid ah shacabka Djibouti iyagu aad mooday inay u haraadanaayeen inay arkaan qof iyo cod iyo dadkooga oo maartanay way doorashadaas maxay ku dhintay bulshada Djibouti maadaama isha ku hayeen oo ay mar walba ay qalbiga ka rabeen in dabcan ay iyaguna helaan markooga in codkooga meel maro ala qof yaala cod lagu kala baxo madaxweynaha iyagu ay rabaan ay ugu soo baxo de horta waa dad qurahaatay baan nahayoo dad badan oo reer Jabuuti ahoo muxuu ahaayey dee ummadda ka soo jeeda dhalasho ahaan way jiraan oo doorashadaana ka qayb gala tanna ka qayb galo marka waa xuduud isku furan oo wuxuu waa dad qurahaatay oo muxuu ahaayey dareenka farxadda lana way wadaagaan wixii murugana way wadaagaan horta ummadda reer Jabuuti waxay xoog ula wadaagaysaa farxad ahaan guusha weyn ee u soo hoyatay walaalahooga Somaliland xoog iyo maaragtay ay igu faraxsanaayeen waxaan u malaynayaa dhacdo taa ka weyn oo maalmaha agteena ka dhacaysay may jirin madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle markaa dadka uu ka maqnaa dalka oo waa kii Faransiiska joogay halkaa buu kala socday tensionga iyo xumadda ummadda reer Jabuuti isagoo halkaa jooga waa loo geynayay oo dee way raggii warka u gurayay way arkayeen ummaddu siday ugu caal taagaysa meesha waxa ka dhacayo oo waxaa quraanka ku taalo suuratul a'raaf jannada iyo cadaabta kolka la galo koox baa jirta buur jannada iyo cadaabta u dhaxeeya dayrkaasay dul joogaanoo mar kasta waxay eegaan xagga jannada xagga cadaabta ma dayaan
أصحاب الأعراف بالله هذا لم يدخلوها وهم يطمعون بقرآن جنة ما يقلنا لكن ضوع ذاك جرو ummadda reer Jabuuti maalintaas uu ka dhacayay voodkii ka dhacayay Somaliland buurtaasay dul taagnaayeen buurtaasay dul taagnaayeenoo inay galaanna way doonayaan eeg macnuhu lam yadkhuluha wa hum yadmacuunti qur'aanka maarag maynan gelin laakiin dawacdaa kaga jiro inay halkaa galaan bay doonayaan horta saasay ahayd xumaddu waxaan u fiirsanayay TV-ga Jabuuti meediyaga adduunku voodku kolkuu dhacayay iyo intii ku horeysay hordhaca ahayd wixii meesha ka socotay xog baa loo qaadaa dhigayay TV-ga Jabuuti marna ma soo hadal qaadin waayo TV-ga Jabuuti meediyaga wuxuu ka mid yahay waa international ummadan baa dhageysanayso reer Jabuuti oo Soomaali laho caalamka oo dhan leh muusoo qaadayn intii voodkaasi uu dhacayay maalintii voodkii uu dhammaaday madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu hambaliyay hambaliyadu jacayl maaha waayo daadka dabayl socota lagama hari karo isagii baa raacay marka ilaa isagii baa raacay uu hambaliyay waa wax fiican dee madaxdii ku horreysay ilaa 5 buu la soo shaqeeyay baan qiyaasayaa kan inuu kii lixaad noqon baan qiyaasayaa ma waka waa 99kii sidaan meesha ka arkayo madaxweynihii ina cigaal ilaa dee hadda ciro u dambeeyey waa hawaka marka waxa weeyaan dee intaas masaarida kifaaya odhan jirtay mudana madaxweyne dee kifaaya la leeyahay marka ina voodkaasi agteeda uun ka dhaco oon annaguna buurtaa uun taagnaano oon maaragtay ay saa u qoodno oo dabayshaasi nagu socotay waxba naga soo gaari weydo dee nama qabato isna uma fiicno isdiidmadii hadda isaga iyo Muuse waqtigii ugu dambeeyay mayna wada shaqaynayn laakiin muddadaasi ma dheereyn muddada wada shaqayntoodu ay gooday muddo yar oo kooban bay ahayd madaxweyne Muuse Biixi inuu kursiga yimaado madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle lug buu ku lahaa wuxuu isku dayay markaas sida ay dadku ka warqabaan Muuse inuunan kursiga ka dhaadhicin xoogaa uu ku riixay Muuse 2 sano uu xajistay laakiin 2 sano wax ka badan dadku way ka yeeli waayeen Muuse markuu arkay Muuse Biixi 2 sano in dirqi lagu yeelay waa kii buurtii la fuulay bahashii kolkay dagaal isku bedeli gaadhay Muuse uu aqbalay marka de Ismaaciil Cumar waxaan leenahay ma in buurta lagu galo adiguna ha ka fikirin oo wax weyn kuma taala dalkana uma fiicno Muuse aqli buu yeesho sidii aan dadku waxay lahaayeen uu diidi doonaa laakiin de hambaliyadii waa la arkay oo uu hambaliyay waa dhaqan wanaagsan oo ummadda Somaliland kursiga waa la wada jecel yahay sidan hadda dalkeena looga jeceliyo loo wada jeceliyo ku laga kacma laakiin de dan guud marka la eegayo jacaylkaaga danta guud baa ka horeyso dalka maaragtay jiritaankiisa soo baxday oo ku guuleystay xisbiga wadani ayaan halkan ka cadeynaya shacbiga u sheegaya oo sharcina tahay sharaftuna tahay qarabisuna yahay maaha maalin aynu murmayno oo isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maalin aynu wada guuleysanay oo qarankeena kor u dhisnay oo horumar ka soo ahayn in badan hadaynu kulmiyanahay haddana ka ahaanayno ummadda waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambalyeynayno madaxweynaha cusub la doortay cabdiraxmaan waa hambalyeynayna xisbigaana waa u hambalyeynaa guusha ay gaareen qarankana waanu wada dhisaynaa kaalinteedii hormoodkeedna waa ka ahaanayna dhalinyarada ka xanaf qaadanaysa wax social media ka jira iyo dadka caadifadooda kacsan tahayna waxaan leeyahay hala dego dowladda qarankaaga aradista aqbal natiijada wax ka dhis qarankaaga haddaad ii ogolaatid anu waxaan qiyaasayaa Muuse inuu dhaco oo maanta laga guuleysto Ismaaciil Cumar Geelle iyo dawladda Jabuuti natiijadaas maanta soo baxday raad bay ku lahaayeen oo noloshii xisbiga wadani ee waxaan u jeedaa iga raalaha xisbiga kulmiye habkii uu u dhaqmay
wax badan oo dadka reer Somaliland ka cadhaysiiyey oo xataa ay ka mid ahayd in dowladda Jabuuti ay soo dhex gashay siyaasaddii Somaliland oo dad reer Jabuuti oo muwaadiniina loo qabtay Somaliland dhexdooda Ismaaciil Cumar bay wax ka sheegeen waxay ila tahay cadho weyn baa taaqudheeda ka dhalatay waana waxa hadda madaxweynahan cusub Ciro oo dad badan ay sheegayaan isaga qudhiisu si uu meesha u yimaado annagu ma cadayn karno laakiin ummadda reer Jabuuti indhaheedu way badan yihiinoo waxay sheegayaan kolba qof buu fuulaa taliskan iyo Ciro hadda inuu fuulay si uu meesha u tago maadaama Muuse la isdiiday waxaasina wax istiraatiiji ma ahina waa dana gaar ah haddii barnaamij kale aad ku soo qaadiin dowladda Itoobiya heshiiskii Muuse la galay mushkiladdu intaa bay ahayd Ciro ma sii wadi karaa ma waxay dowladda Jabuuti ku dagaalantaa ma dagaal uu ummadda reer Jabuuti ay ku jirtaa inay Itoobiya annagu kama hadlayno danta guud ee Soomaaliyeed laakiin in laga sameeyo boor dhulka Somaliland meeshuu dooniba ha noqde ummadda reer Jabuuti dagaalka may ku jirtaa mise waa dagaal uu ku jiro dad gaara oo dana gaara leh ay ku jiraan waa su'aal waa in dadka Somaliland saas u fikiraan halka hadduu dagaal ka jiro dagaal ayaa uu ku jiro weeye ummadda reer Jabuuti miyaa mise waa cid gaara waa su'aal waxaan markaa madaxweynahan cusub hadda leenahay ummadda reer Jabuuti maadaama aan dad walaalo jaarahoo dhiig iyo dhacaanba wadaagna aan nahay marka la ilaalinayo xidhiidhka iyo xigtanimada iyo walaalnimada lama ilaaliyo talis oo qurahaatay waxaa la ilaaliyaa ummadda oo ay dowladduna ku dhex jirta dowladda in la yaraysti waa ceeb ma lihin sida laakiin hadday dowladdu ay dhaafto xuduudii oo wax ummadda reer Jabuuti degan oo dhaawac ku ah ay ka codsada ummadda Somaliland in laga yeelo ma waa annaga oo dowladda Somaliland ay naga codsatay wax dhaawac ku ah ummadda Somaliland kama yeelayno waxaan rabnaa ummaddii iyo dowladdii oo isku dhafan in karaamadooda la ilaaliyo waka siyaasadda saxdii waa sidaa cilaaqaadka kolka la ilaalinayo cilaaqaadka ummadda la ilaaliya ummadda dowladdu way ku dhex jirtaa marka Muuse wuxuu isku dayay inta yar baa ka qarsoonto oo u ilduufay meeshaayo wuxuu ilaaliyay maslaxadii taliska waddanka Jabuuti wuxuu ka tallaabsaday dantii guud ee ummadda reer Jabuuti buu xoogaa iyuu si ugu joogsaday daawac bayna ku ahayd ummadda codaynaysa ee Somaliland ka codayso boqolaal iyo kumanyaal ka mid waa reer Jabuuti qaar dhalasho ahaan bay meeshan u degan yihiin oo waa ummad reer Jabuuti oo waxay haystaan Jabuutinimadii qaarna waa ummad Somaliland degan oo ummadda reer Jabuuti u damqanayso walaalo awalow inay sharcigii Jabuuti haysan ummaddaasi haddii uu taliska Somaliland kii hore ka dambe midoo doonay ha noqday uu daawac u geysto waa inuu talisku ogaado maalinta la codaynayo waa laga codaynayaa oo dhaawacaasi isagu ku soo laami doona marka Ciro ha digtoonaado khaladkii Muuse uu shalay galay ha iska ilaaliyo dowladda reer Jabuutina ha la noqdo saaxiib iyo walaal ummadda reer Jabuutina karaamadeeda iyo sharafteeda ha ilaaliyo oo ku mucaarad iyo ku muxaafad iyo siyaasadda waa la isku diidan yahay weligeedna laguma heshiiyo sidaa kulmiye iyo ay isku hayeen waddan iyo kale un baa la isku yahay meel kasta waa inuu sidaa u og yahay uu taa ku dhaqmo intaasaan u dhalbaa